shirkadda Dahabshiil Group ayaa sanadkii labaad qabatay munaasabadda xafladda qurba joogta oo ay si weyn u soo agaasintay isla markaasina loogu talagalay in lagu maamuuso macaamiisha shirkadda ee qurba joogta ee xilligan xagaaga dalka dib ugu soo noqota isla markaasina ka kala yimaada dalalka dunida dacaladeeda. munaasabaddan oo kulmisay bulsho badan oo dalal kala duwan ka yimi ayaa lagu soo bandhigay adeegyada casriga ee Dahabshiil sida Dahab Plus, Tok Remit, Dahabshiil App iyo adeegyada bangiga iyo maalgashiga iyo guud ahaanba adeegyada kala duwan ee shirkadaha Dahabshiil Group kuwaas oo si gaar ah loogu talagalay inay fududeeyaan nolosha iyo maaliyadda qurba joogta. madaxda ka soo qayb gashay munaasabadda iyo mas'uuliyiinta shirkadda ayaa si wada jir ah u xusay in macaamiisha qurba joogtu ay yihiin lafdhabarta horumarka shirkadda iyo guud ahaan dalkaba isla markaasina ay shirkadda ka go'an tahay inay sii xoojiso xidhiidhka iyo adeegyada loogu talagalay bulshada ku kala nool qaaradaha dunida. ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay madaxa howlgelinta shirkadda Dahabshiil Group Jaamac Ismaaciil Nuur waxaana hadalladiisii ka mid ahaa. runtii caawa waxaa noo sharaf ah anigoo ku hadlaya magaca guddoomiyaha shirkadda iyo maareeyaha guud ee shirkadda Dahabshiil Group inaanu ku soo dhaweyno qurba joogta xafladdan Dahabshiil iyo qurba joogta xiriirka ay leeyihiin runtii waa xiriir qoto dheer muddo soo jiray waana mid aanu runtii ku faano waxaana inaga mudan yihiin xafladahan iyo kuwa ka qaalsanba inaanu qurba joogta ku soo dhaweyno annagoo jaaniskan uga faa'iidaysanayna runtii inaan u mahadnaqno inaanu dalkooda ku soo dhaweyno inaanu xasuusino in dalka looga baahan yahay inay dib ugu soo noqdaan maalgashadaan gacan qabtaan walaalahood Dahabshiil meel walba oo uu joogo ummadda Soomaaliyeed iyo dadka af Soomaaliga ku hadla runtii gacan buu yahay ummaddan waan ku faanaa iyaguna Dahabshiil way ku faanaan. sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah maamulka sare ee shirkadda Dahabshiil Group oo iyaguna ku dheeraaday xidhiidhka qurba joogta iyo shirkadda Dahabshiil. cidda soo doojisay dadka ee badbaadisay waxa weeye qurba joogtiina iyo hor fadhida iyo qaar kale oo la mid ah ayaa dadka soo badbaadiyey. ilaahay baa mahad leh annaguna waxaanu isku xidhaynay dadkii dibadda u firdhaday iyo kii dalka ku soo hadhay. markii xigayna waxaanu suuro gelinay sidii aad u wada hadli lahaydeen oo waxaanu idiin keennay isgaadhsiin aad ku wada hadashaan. halkaa markaynu soo dhaafnayna waxaanu idiin keennay bangi bridge idiin noqda oo caalamka iyo innaga isku keen xidha. markii hore Soomaalidaanu isku xidhaynay markii dambena bangi caalamka inagu xidha ayaanu idiin keennay. markaynu taa ka soo gudubnay waxaanu ku tallaabsannay inaanu idiin samayno investment oo guryihii iyo gaadiidkii iyo ganacsigiiba aanu idinku samayno investment idinku samayno. waxa aanu waxyaabaha caawa laydiin soo bandhigayo waxaa ka mid noqon doona inaanu xawaaladii aanu ballaadhinay oo expansion ku samaynay sanadkan gudihiisa. Yurub waxaanu idinka furray 48 branch oo xawaalada aanu idin furray oo isugu jira Tok Remit iyo Dalmar oo ah qayb ka mid ah Dahabshiil ka mid ah. waxaanu furray Canada 3 branch baanu idinka furray. Hindiya 2 branch baanu idinka furray. Pakistan cidii wuxuu diraysiya Bangladesh baanu furray. Tanzania baanu furray. taasi waxaanu doonaynaa inaan idinku ogeysiino si aad ugu adeegataan oo aad meelaha aydan hore ogeyn aad haddii alla ka dhigo haddii qofkii dan u yeeshaa inuu ka adeegto. waxaan dhowaan launch garayn doonaa oo caawana halkan aan ku iba furnay dhismahoodina uu bilaami doonaa 4 xaafadood oo 4 jihe magaalada ah sidii uu Saciidba sheegay oo aan ugu talagalay in laga dhiso guryo kaliya tan maaha ee runtii noqon doona magaalooyin dhammaystiran
oo ka turjumaya guryihii la degi lahaa meelihii ganacsiga ee dadka loogu adeegi lahaa goobihii nasashada masaajidadii oo runtii adeeg dhammaystiran aan isleenahay waa ku soo kordhin doontaa sababta halkan aan caawa qurbajooga ugu launch garaynay barnaamijkan waxa weeyaan in iyagu iba fur u noqdaan mar hadday yihiin dadka ugu badan ee runtii waddanka ku soo noqda jecel guryo iyo waxa weeyaan iyo environment runtii horumarsan oo ka turjumi kara runtii meel ay ku nastaan oo tacabkii iyo dadaalkii ay dadka iyo shacabka ugu maqnaayeen ay kaga nastaan inaan caawa iyagu ay noqdaan cidda koowaad aan ugu hor sheegno waxaan doonayaa inaan faahfaahin yar aan ka bixiyo Dahab Plus features badan runtii oo aad u muhiima ayaan leenahay waxaa ka mid ah remittance oo lacag dirida oo weliba secure you can send anywhere anytime saving key oo kaydsa oo runtii na anfacaya qurbajoog lagu xinooba runtii oo leh hal bil 3 bilood 6 months iyo amba sanad firska muxuu ahaa aan doonaya aad inaan usii adkeeyo waa global call oo dibadda jooga soo wacaya qofkii qoyskaagii amba carruurtaadii kusoo dhacaya without internet you just have to top up and you can make the call easy dhinaca kalena waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid a macaamiisha shirkadda ee qurbajoogta oo iyaguna si weyn uga warbixiyey xidhiidhka ay la leeyihiin dahabshiil iyo adeegyada shirkadda dahabshiil waxyaabaha ay u fududeeyaan hadalladii qurbajoogtana waxaa ka mid ah dahabshiil 25 sano u dambeeyey nacam waxaad noo qabateen idinka iyo kulli kuwa kale way jiraan laakiin anagu dahabshiil waxay noo qabatay waa wax weyn ha ahaato inaan dadkayga wax ku soo tarno dalkayga wax ku soo tarno annaguna lafahayga aan wax u taransano investment ha ahaato remittance ha ahaato runtii sharaf iyo qiimo ayaa dahabshiil aan ugu mahadnaqanaa waqti adag bay dalka la soo martay waqti dhibaatooyin fara badan ay dalka ka jireen oo dadka gudaha iyo dadka dibaddu ay iswaayeen ayaa dahabshiil ay fursad u siisay dadka reer Somaliland amba Soomaaliyeedba meel kastoo ay joogaan bay dadkaasi dib isku helaan maanta meeshan aan isku nimi ama xafladan qiimaha badan ee aan isku nimi dahabshiil group aad baan u faraxsanahay qurbajoogyo inay joogaan runtii last 15 years dalka wax badan baan gashaday carruurtii dhammaantoodna way la socotaa waxyaalooyin badan hadday guryaha noqoto hadday lacagaan ka qaato noqoto wax badan ayay dadka qurbajoogka nahay ay noo fududeeyeen anigu ciyaar qurjanaaba waxaan u ciyaaray kama weynaana ciyaar qurjaneen dahabshiil fanaanadeeda aan waan ka dhawaan soo ciyaaray ugu hore waxaan dhaqayaa intaa kadib shirkadda dahabshiil group runtii aaminaadii halkan ku soo gaadhay inay dadka caawiso waxaan leeyahay allah ina barkeeyo shirkadana ha barkeeyo dadka qurbajoogta cashuurtayna waxaan leeyahay iyaguna way mahadsanyihiin allah ha barkeeyo dadkii noogu adkaa baa dhoofay ugu dambayntiina waxaa munaasabadda uga mahadnaqay shirkadda dahabshiil group kaalinta weyn ee bulshada ku leedahay maayarka magaalada Hargeysa iyo wasiirka ganacsiga oo iyagu munaasabadda soo afmeeray hadalladii mas'uuliyiintana waxaa ka mid ah qoladiina diasporaha walaalayaal waxa ku soo dhawaataan dalkiinni aad dhisateen markuu dumay waxaad ku soo dhawaataan dadkiinni waqtigu markuu ku adkaa aad gacan qabateen bilka u soo dirteen waxbarteen u guuriseen walaalkiinni yaraa ama inantiinni aad ka tagteen hooyadiinni aabihiin aad wax u soo dirteen dahabshiil wuxuu isaguna astaan u yahay wuxuu noqday dadkeenna oo dhibaata haysato ayuu meel hoose ka soo bilaabay wuu guulaystay adduunka daafihiisuu gaadhay waa magaceenni weeye waa sharafteenni weeye adduunka markaad tagteen meel yar ka laabateen magaciisa ku aragto anigu kolle waan farxaa waayo markay ugu yar tahay waxaad ku odhan kartaa qofka ajnabiga cad dahabshiil company waa company ka soo aasaasnay waddankeega maantana guulahaasuu gaadhay ugu horreyn waxaa runtii sharaf ii ah inaan kasoo qayb galo munaasabadan ay soo qabanqaabisay ama uu soo qabanqaabiyey dahabshiil group soo qabanqaabiyeen
ugu talagaleen inay casharaf sameeyaan qurbajoogta reer Somaliland iyo sidoo kale inay kusoo bandhigaan adeegyo cusub oo ay bixin doonaan insha Allah iyo mashaariic ay ka geli doonaan sharaf gaar ay noo tahay inaan kasoo qayb galno waana ku faraxsanahay runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan sidoo kale mahadnaqayaa qurbajoogta reer Somaliland ee soo xaalatay qurbajoogtan iyo inta kale inuu suura gelin laakiin jeclayd inay kasoo qayb gasho oo iyagana runtii aan ugu mahadnaqayo kaalinta weyn ee ay kaga jiraan horumarka iyo dhismaha dalka ay kaga jiraan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa run ahaantii dahabshiil group waxaa markhaatimo doon ah oo looda ogyahay kaalinta ay ka soo qaateen dhismaha dalka iyo horumarintiisa iyo halkay ka soo qaadeen runtii iyo ilaa hadda kaalinta ay ku jiraan hadday tahay kobaca dhaqaalaha oo gaar ahaan ay xoogga saareen nidaamka bankinka iyo telecommunicationka ay xoogga saareen oo wax badan runtii ay qayb ka qaataan horumarka dalka dhismihiisa shaqagelinta hadday tahay qurbajoogta xaggooda waxaynu ogsoonahay iyaguna kaalin guul inay ku jiraan hadday tahay taageerada ay siiyaan qoysaskeena kala duwan